marka u hayso reerkii daarood ee ameesha ku matishina intuu ka tira ka marka laga reebo jifida arkaa jira doona halkaas u saaran tahay dad yar oo السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ولا سوماليدا ميل كاستو جوجتان يسي والبوي إدين تهي وقتي جنان إذن كسلامية وولالكين إسماعيل عرح وعادي قال الصعوتان فرح ميديا هدي أي تهي مركي كوغو ريسيو مصوب وغنيسو مقارانا يو واحد سبسكرايب channel كلا سهر الله هاي لايك تان إلما أذيريا لو حيدين كعودسانا يقفكو فيديو واسو غارين ولا يسارو anyway guys عاوي waxaan rabaa barnaamijkayga inaan saddex arrin uga hadlo kaliya oo muhiim ah in comment serious aan ka bixiyo waxaan ka hadli doonaa oo barnaamijka aan ku qaadan dhigi doonaa arrintii de maalin kasta wax baawiso Captain Ayub oo video soo duubay oo ku tilmaamay ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya marxuum asagoo raaciyay in dad 5 qof ah jawooyinkoodii lagu bedelay dad kale taas oo ay ahayd inuu bedelo ra'iisul wasaaraha qaranka waa ka hadli doonaa oo waliba nin la yiraahdo Shino Culey wasna jawaab ku soo siiyay taasna waan qodobkaas oo ka hadli doonaa waxaan kaloo asna aan talayir aan siin doonaa insha Allah xafsa kuweyn haduu ilaahay kala noqdo waxaan kaloo ka hadli doonaa Darisla Cabdi iyo Kinsikay oo iyagu laftirkooda baryahan dagaalkoodu de dagaal xaafadeed noqonayo waan ka hadli doonaa laakiin waxaan rabaa inaan ku horumaro arrinta Captain Ayub video soo duubay xalamay habeen hore oo dabcan si cadayn ay ku buuxdo uu nugula wadaagay dadka la bedelay qabiiladooda ilaahay kuma darnaadee dadka lagu bedelay qabiiladooda wuxuuna ka hadlay uu sheegay ra'iisul wasaaraha inuu yahay nin aan shaqadii loo idmaday aan haynin iyo matalaadii reerkii asaga uu matalayayna ana waxba ogeyn videogaas waxa dhageystay horta arrintu waa arrin ka yara dhaxayso videogaas markuu ninkan dhamaystay waxa dhageystay Cabdiqaadir Booskana iyo Captain Ayubna dadkoo dhan waxay og yihiin inuu ka dhaxeeyo challenge dhinacooda ah nin hawiyo u hadla nin daarood buu hadla waxaan aaminsanaa labadoodaba inaysan matali karin daarood iyo hawiyo iska daayay abgaal iyo majarteen baysan matali karin waa laba nin oo dhalinyaro ah oo isxifaalteeyo oo baraha bulshada dhinaca qabiilka isku xifaalteeyo marka Cabdiqaadir Boos baa su'aasha ka soo jawaabay nin la yiraahdo Shino Culey intuu dhageystay jawaabtii buu afka furtayo hadaladiisii wax ka mid ah arrintan horta waxaan rabaa inaan idiin sheego su'aasha fahankeeda waa qayb ka mid ah jawaabta Captain Ayub wuxuu ka hadlay in Xamso uu marxuum yahay macnaheedu ma ahan inuu Xamso aflagaadeenayo ee muhiimka waxay tahay annaga Soomaali baan nahay Soomaalidu carto xilligii Djibouti ee lagu dooranayay Cabdiqaadir Xasan bay Soomaalida wax sharci darro soo dhulobteen waxay soo dhulobteen waxa ka mid ahaa barnaamijka 4.5 oo ahaa si sharci darro ah bay Soomaalida isku keensatay haddana waxay xal u arkeen in 4.5 kaas ay wax ku qaybsan karaan macnaheedu waxay tahay qabiilada Soomaalida ahi ee hadda samaystay maamul goboleedyada in dawladda federaalka ahi ay ku wada joogaan qaab qabiil si yacni ayaga maslaxadooda ay u arkeen madaxweynaha ugu sarreeya dalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud waa qabiil hawiyo ونن أبجاله ونن أبجال اسمعنا ونن مثله قبيل كهوية أو كمدة أفرتواوين حمسو وحو مثلا قبيل كدارود وزير ذا يقاب كأي تهي أفيان كبرلمان كوحو مثلا رحوين رئيس الوزراء كحجين كوحو مثلا در
و4.5 ككلنا وحا لا سيا جوين كلو marka intaas qofka markuu fahmo Soomaalida madalkeeda aniga waxaan ka fahmay intaan ka fahmay Kabtan Ayuub hadalkiisa hadal aflagaada ama ahayn hadal caayaan ama ahayn inaan kala fahanno way dawladda qaabkay u dhisan tahay madaxweynaha waa head of state macnaheedu waxay tahay waa يعني dalka dhan buu madaxweyne u yahay wuxuu matalaa marka madaxweynaha Soomaaliya markii la fiiriyo si wasiirka arrimaha dibadda ahaanta ra'iisul wasaarahana waa head of the government wuxuu madaxweyne u yahay xukuumadana waa golihii fulinta wax kasta oo ka dhacayo xukuumadda dhexdeeda haddii agaasimo la bedelayo haddii wax la bedelayo waxa bedeli kara oo authority-geeda leh ra'iisul wasaaraha dadka markii qaab noocaas wax loogu sharaxo oo la fahansiiyo macnaha dawladda procedure-keeda qofku uu fahmi karaa wax wuxuu ay Kabtan Ayuub ka hadlay dadka la bedelay oo mahad salaad ilaa kuma daraadey fiqi iyo sida uu sheegayay ayaga caadi uma aysan bedelin laakiin saameyn ay leeyihiin iyo influence ay ku leeyihiin dawladda lagu bedelay ee lagu keenay dad kale waxa awoodeeda iska lahaa xamse intuu imaaday ama uu shaaciyay cid uu digreeto ku magacaabay ma jirto shacabka Soomaaliya intuu soo fariistay muusan dhihin dadkaas aan bedelaya dadkaasana waxay sameeyaan yaa keenay labadaas qof aan bedelay waa laga aamusay arintaas marka waxay ku abuuraysaa dadka public-ga shacabka in dawladdu ay tahay يعني دولة أما محلي رئيس الوزراء ويعني اللي إسكوته رئيس الوزراء مركا مثلات بولي هاي وحماش أفضليا قبيل ليرا هذا دارود إسماعيل بو مثلا مثل كيساسنا وحيتها هاي دارود بو مثلا مركا بولي معناه هذا ما هم إن وح إسان أهين وصينيو أما أوكا قاضي وح لقى الله وحيتها هاي دولة نمدا ضدك إن لا تصور كابتن أيوب مركا هل بو قلدين Kabtan Ayuub wuxuu ku qaldan yahay waan rabaa inaan u sheego ninka odayga saaxiibkii ah Kabtan Ayuubow madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wuxuu ahaa nin madaxaan wuxuu ahaa nin daarooda dalka 5 sano u haystay Soomaaliyana waa Afrika waliba Afrika way ka sii lidataa ninka madaxweynaha dalka ka ah baa golaha fulintana haysto golaha sharci dejintana haysto golaha maxkamadana haysto waa saddexda qaab ee dawladdu ku dhisantaa waa golaha sharci dejinta oo baarlamaanka madaxweynaha bas maamulo Afrikaan ka hadlayna iyo Soomaaliya waxa ka jiro golaha fulinta oo laga rabay xukuumaddu inay wax walba yaani fuliso madaxweynaha hoos tagtaa madaxweynaha waxa xaqiiqa cid walba ay ogtahay ra'iisul wasaaraha ee xukuumaddiisa wasiirada uu keenay hal nin uu asaga u keensaday ma jirto waa wax loo soo dhodhoobo oo la yiri dooro dadkaas yaani boodiga iyo qaabka Soomaaliya hadda siyaasadeeda instruction garaysan tahay in la fahmo muhiim waa marka waxyaaba uu ka fahmi waayay Kabtan Ayuub waa nin oday ah waa nin siyaasadda cabaar ku jiray laakiin xogaa waxa u malaysaa maadaama Jarman uu joogo inuu ka dhacsan yahay siyaasadda Soomaaliya qaabka loo isticmaalo siyaasadda Soomaaliya madaxweynaha dalka xilligaas ka ah baa wasiirka arrimaha dibadda asaga wasiirka arrimaha gudaha asaga agaasimo ceyrin karo asaga ilaa wax kasta oo la sameeyo dalka madaxweynaha waa sababtana waxay tahay marka hore uu keensanayaa qof aan hadli karin ninka uu keensanayo ra'iisul wasaaraha dhahayo u magacaabo iyo maxaa jiray uu keensadane waa nin uu talagalay inuu san ka daba hadlin inta ina faantaa muhiima Xasan Sheekh waa madaxweynaha kaliya ee saddex ra'iisul wasaare isku bedelay saddex ra'iisul wasaare saacid bay isfahmi waayeen wuu bedelay Cabdiwali Yuulku bedelay عمر عبد الرشيد مركي دبا كيناي oo deeynaan u noqday wuxuu raba sameeyay marka in yaani Kabtan Ayuub oo ka hadlo in matalaada ninkan dadku uu matalay iyo asaga awoodiisa authority-giisa uu ra'iisul wasaaraha isticmaalo canaan bay ka ahayd kama ahayn asaga jifadiisa ama Maxamuud Salmaan ama Majarteen wax u raadi xaqiiqdana waxay tahay adiga hadda hadlayo oo shiina culay laftirkaada jifadaada in la siiyo maanta wax warabtaa Soomaalidu dhow way raadinayaan xaqiiqda waa laakiin ninka ragga Soomaalida waxa tirada gaalka dil gabtiisana si aniga ma ihi maxalli jiray ninkan labada nin oo hadda ka hadlay labadooda ma aqaano shakhsi ahaan isku ma naqaano Majarteen mihi وسنجليجاس وهذا نكا أو محل يجري شيئا أنا ما هي لكن واحد كهذا يا بودي قف حق وقول لي هاي إن وإلهكم مدرنا عليه والسوشيال ميديا إماده فكر كيس أو عبره وحو أصلا كهذا ينا كي كلا نكا مركب وانين أنا ناي حمسو أو كودي
labadii nin ee kaa horreysay kulli waa lagu ceyrin doonaaye ceyriskaas adoo sharaf leh bax waana arrin xaqiiqa waayo laakiin ninka odayga xamse ninka la yidhahdo muxuu ahaa shiino sheekadii waxaad u malaysaa inuusan fahmin waa iskaga dhexgal gashay cabdiqaadir boos oo ninkaan is hayeen buu ilaahay kuma darnaadee ma aqaana ma horey bay isku hayeen xoogaa dee macnaha hadalladiisa hadallo waxay ahaayeen unthought information una ka fikirin uu dadka la sheergareeyey ninkan waa sayid ninkan waa saan ninkan sayidnimadiisa cid ku haysata ma lahan daarood ugu matalaa cid yacni nacab ma jirto cid ka hor imaanaysa ma jirto laakiin waxaa loo sheegaya waxay tahay in dadku asaga matalo ilaahay kuma darnaadee aanan lagu dulmin meesha anyway waxaan rabaa inaan tala siiyo arrintaas uma fogaanaya halkaas iga jooji waxaan rabaa inaan tala siiyo idrisle iyo ninka odayga KCK baa ayaamahan xoogaa hadalladooda ay socdaan oo ay isdagaaleen raggu sidooda dee markaa wax ka hadlaysay si cadaaladda daacadnimada kan baa ay xigo iyo kan baa ay wax loogama waxeeyo warniga idrisle wuxuu soo duubay video uu ninkan xoogaa u yaraa ma qaawnayn laakiin sawirro xoogaa aan habboonayn buu video iyo YouTube-kiisa soo geliyay arrintaas waxay sababtay in KCK uu ka xanaaqo asna video soo duubo hadallo aan fiicnayn kolley niyahow labadiina nin KCK iyo Idrisle Cabdi laba nin oo waxaa tihiin legend ah waxaad role model u tihiin Soomaalida YouTuberada soo baxayo waxaad role model u tihiin Soomaali fara badan oo idin daawato idinku xiran malaayiin hadda milyan buu magaciisa ku socdaa ninkaana milyan waa dhaafay ilma adeerayaalow waxyaabaha dadku maaragtay wax waa la iskaga hadlaa waa la isku kala kacsadaa laakiin ma fiicno in sawir qaldan dadku ay idinka fahmaan inaad tihiin caruur isciirsanayso yacni dee hadalladiina ninkaan waxaa arkay CK oo ninkaan gabar magaceeda ugu wacayo ninkaan sawirro qaqaawan oo soo qaadayo marka labadiinaba sumcad idinma ahan long term ranka xataa the coming 5 years or waxa aad duubaysidna waa wax ilaahay kuma darnaadee record geli doono marka waqtigiinana waa muhiim qof walba wuxuu YouTube-kiisa soo dhigaya ka fiirsado labadaas ninna hadalkooda kuma dheeraanayo ani waxaan dhihi lahaa wax macquul oo positive ah dadka idin daawanayo waa dad ka aqoon badan waa dad ka weyn waa dad ka waaya aragsan wax walba isugu jiraan yacni dee hadalladiina social media wiina controller dagaalama laakiin xataa dagaal macquul la dadka kula dagaala laakiin sawirro qaqaa waxaas xogaa dad yacni waxaad u ekaanaysaan unprofessional hadalkiina kuma dheeraanayo intaasaan uga baxayaa waxaan soo gelayaa marka Xafsa Queen oo ah gabar Soomaaliyeed ahna YouTuberad Soomaaliyeed sorry oo ku nool dalka Kenya gaar ahaan magaalada Nairobi xarunta dalka waddankaasi gabadhaas hal talaan siinayaa talada aan siinayo waxay tahay walaal macaan qofka hadduu kufo waxa ceeba godkii uu ku kufay mar labaad inuu haddana ku kufo waa doqonnimo dadku waa labo failure markii lagu leeyahay qofka markuu wax ku fail garoobo waa caadi waa first attempt in learning waayo laakiin waxa fashil ah qofka wuxuu ku fail garoobo haddana inuu ku sii laabto meeshii wadadii uu hadda maray shalay ku dhacay haddana inuu maro anyway waxaan rabaa inaan kuu sheego noloshaada qofkaad guursanaysid gabar yar baad tahay mustaqbal fiican baad leedahay sumcad iyo sharaf kuma ahan in maalin kasta social media aad soo dhigto qof cusub haddana aad kala tagtaan sharaftaada iyo sumcadaadana gabar Soomaaliyeed baad tahay yacni ka fikir arrintaadana privacy-gaada wixii hadda ka dambeeyana private ka dhigo haddana isguursanaysaan ninkaada isguursada haba noo sheegin baa annaga social media ha keenin wallahi inaan been idiin sheegay wixii social media la keeno xiriirkii social media la keeno ma noqonayo xiriir caafimaad qaba wuxuu noqonayaa xiriir aan unsuccessful amaba aan lagu guulaysan haddaad rabto xiriirka inaad ku guulaysatid waxaan kaa codsanayaa in aad arrimahan ka waantoodid qofka adiga nolosha aad kula wadaagaysidna aad meeshaas soo waxaysid wala saxaabay jamaahiirta farax media ku xiran intaas barnaamijku soo gabagabeynayaa haddaadan wali subscribe channelka noo saarin I don't know what the fuck you are listening I don't know why you are not giving me subscription to my YouTube channel anyway subscribe sar like sar comment fikirkaada quruxda badanna nala wadaag barnaamij noocaana intaan ku kulmaynana waa walaalkiin oo idin le wixii la isku lahaa Soomaalnimada ay jirto hal idin ka helo assalaamu calaykum